inuu noqonin fadhigeeni fadhi maxaa la oran jiray inaan iskugu imaano halka ku dhamaado waxaan rabnaa inay noqdaan wax ay ka soo baxaan wax miro dhala wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa degmada Doolow ee gobolka Gedo ku soo gabagabeysay kulan 2 maalin soconayay kaas oo looga arinsanayay siyaasadda ku aadan wax ka qabashada dhibaatada gudniinka fircooniga uu u leeyahay dumarka Soomaaliyeed waxaan leeyahay wuxuu ka dhaqan gelayaa culumada diinka Soomaaliya wadaadkii culumma awdiinka ka jiifa arinta ayada anigu waa la qabaa fikriga asaga waxayaan culumana la eedayn odayaal la eedayn gabdhana la eedayn awood u baahan ka qabto dhaqan ugu jiro waa sanadii jirsaday xidid bixin iyo wacyigelin tara badan u baahan kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay shacab isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada degmooyinka Beled Xaawo Luuq iyo Doolow iyadoona wasaaradda ay dhageysatay afkaarta ka soo qayb galayaasha oo dhammaantood isku raacay in gudniinka fircooniga uu dhibaato u leeyahay bulshada gaar ahaan gabdhaha yaryar saas awgeedna ay habboon tahay in la helo sharci lagu xadido waxaan kula talinaynaa gabdhaha Soomaaliyeed odayaasha Soomaaliyeed culumma awdiinka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan wixii in la xakameeyo kol hadii ay sharciga ka soo horjeedo xaqiiqatan barnaamijkan barnaamij taagan wax ciyaar ah u malaynina dhammaantiin waxaan ka codsanaynaa arintan Ilaahay dartii inaan ugu istaagno sababtu maxaa yeelay qof kasta iyo qoys kasta saameynaysa shayga fircooniga in la joojiyo oo uu san banaanayn oo uu xaraam yahay wax badan bay sheegeen culimadu waxa aan ka hadlayno saldhigga aan ka dhigayno hindi sharciyeedka waxa loo sameeyay waxa dood aan u sameeynayno waa gabdhaha naga way oo qaaliga ah inaan badbaadino ana ku hadlaya afka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Jubbaland ogaada arintaasi inaysan arin diineed ahayn arinta gudniinka fircooniga iyo diin asal kuma leh waxaan leeyahay hawsha waxa soo afjari kara oo la qaadan kara culimada iyo hay'adaha iyo ragga la qaadan kara gabdhaha Soomaaliyeed oo gabdhaha dhala haweenka Soomaaliyeed arintaas culumada caam oo la isku raacay ragga meel buu ka fariistay geed gaam waa u fulay waa hirgelin waay maanta waxaan soo jeedinaa codsanayaa inaad adin hirgelisaan adinka in ku xiran tahay arintaas daalkeeda adinkaan ka rabnaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamed Xuseen Maxamed oo madasha ka hadlay ayaa ka sheekeeyay qorshaha wasaaradda ee wax ka qabashada gudniinka fircooniga isagoona sheegay in laga soo saari doono sharci xakameynta gudniinka fircooniga maadaama uu dhibaato xun ku hayo dumarka Soomaaliyeed waxa uuna tilmaamay in dawladda Jubbaland ay diyaar u tahay ka hortagga gudniinka fircooniga anigu waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkii ka soo qayb galayaalka ahaa safarku soo galay inay nagala qayb qaataan fursadani ama sharcigan aad ka muhiim ku ah aanu isu kaashana dagaalkan aan ku kala harin waxa farxad gooni ah inay joogaan dad xukuumadda ka mid ah barnaamijkan warbixin inay ka hayaan barnaamijkan anagu inta uu ka gudbo hal mar waxaan noo dhimay inaan ku qabano mid aan isku keenayna hay'adaha dawladda si walaashay miska dayta ugu dhawaajinaysay booliska iyo inta kala hormood ku yihiin marka halka gaarsiinana baarlamaanka golaha wasiirada marin doona markuu dhaqan galana insha Allah madaxweynaha uu saxiix waxaan filaynaa in uu noqon doono midkii badbaadin lahaa ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayaad u mahadsantiin bishii labaad ee sanadkan ay ahayd markii sidan oo kale ay wasaaradda haweenka Jubbaland bulshada ku dhaqan Kismaayo madal wada tashi isugu keentay muddo 2 cisho ah waxaana intaa wixii ka dambeeyo xeerkan uu mari doonaa wada tashiyo kala duwan si loo dhameystiro isla markaasna uu u dhaqan galo Cabdullaahi Xuseen Kilaas telefishinka caalamiga Ariel degmada Doolow